السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين في وناكسن آدي آد بان إدين سلامية. عاوة وحا هالكن إن la jooga sidii aynu habeenna dhaweyd waxaynu ka hadlaynay covid 19 dhibaatada inugu hayo khatarta uu leeyahay sida looga bixi karo iyo waxyaalaha kale xidha caawa halkan waxa martii noogu ah Huda Muuse Xaaji oo ka mid ah mihnadayaasha caafimaadka ka hawlgala magaalada Bristol iyo nawaaxigeeda runtii muddana ka shaqaynaysay waxaan jeclahay inay caawa bal su'aal aynu ka weydiino cudurkan khatarta uu bulshada u leeyahay sida uu Soomaalida gaar ahaan u sii saameeyay iyo sida uu runtii sida aynu wax uga qaban karno haddii aan maanta in yar aan sharaxaad ka siiyo horta maanta marka la eego dadkii uu ku dhacay waddankoo dhan waxaad moodaa inuu hoos u dhacay waxa weeyaan waa 740,000 iyo 500 iyo xoogaa ayuu ku dhacay dhimashada waddankoo dhani maanta waxaa covid 19 u dhintay 1564 haddii aynu eegno Bristol aynu maalmo iyada eegno isagoo waddanka hoos u dhacay waxa cajaa'ib Bristol maanta uu yara kacsan yahay 200 kor buu kacay 280 qof ayaa positive noqday yani ayuu xanuunkii laga helay dhimashadu maanta waa 10 waa dadka maxaa la yidhahdaa death certificate warqadan dhimashada shahaadada dhimashada loogu qoro inuu xanuunkaasi dilay maanta waa 10 shalay waxay marisay 3 daraad waxay 4 maalintii ka soo 4 haddii la eego 7 cisho ugu dambeeyay 31 qof ayaa Bristol ku dhintay waxa cisbitaalada maanta la geeyay ilaa 30 qof marka loo eego 7 cisho u dambeeyay Bristol 143 qof ayaa uu cudurkaasi loo dhigay dhakhtar haddaba waxaan doonayaa caawa Huda Muuse Xaaji inaan weydiiyo Huda marka hore soo dhawow waxaad ka mid tahay mihnadayaasha caafimaadka muddo ka shaqaynayay bal horta wax yar nooga sheeg qaybta aad ka shaqayso khibradda aad u leedahay iyo inta aad ka shaqaynaysay kadibna cudurkan coronavirusku khatar intee leeg ayuu bulshada ku leeyahay iyo waxa keenay ama sabab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا horta waxaan ka shaqeeyaa waxaan ahay marka hore nurse waxaan ka shaqayn jiray markii ugu horeysay intensive care Bristol South Mid Hospital 10 years baan ka shaqaynayay intensive care waan ka baxay laakiin waxaan ka shaqeeyay dabeetana qaybta emergency departmentka so A&E-ga waliba agent care ma la yidhaaho marka pandemicii hore ayaan aad u shaqeeyay intii u dhaxaysana maan shaqayn haddana shaqadii waan ku noqday marka horta saasay shaqadaydu tahay oo intensive care-ka ayaan u badanahay coronavirus-kana waxaad tiri wax nooga sheeg waa waxaynu ku jirno 2019kii nagu bilaabmay adigu January ilaa December aynu welina ku jirno oo sina badanayo una weli soo yaraanin uu ka sii batay marka wayn wadan maqalnay coronavirus waa wax maalin kasta newska laga sheegayo ama televisionka radioga newspaperka meeshaad aad aragtidba coronavirus baad maqlaysaa marka waxaan u maleynayaa wayn wada garanaynaa inuu hadda yahay xanuun sida durayga oo kala ah oo qofka sidii durayga ugu dhacaya laakiinse waxa cajiiba uu kaga duwan yahay durayga isagu wuxuu leeyahay wax ma garanaysaa qofku dadka qaar baan is ogeyn inay qabaanba oo iyagoo iska soconaya oo iska caadiya oo waxbaba xanuunsanayn haddana ay xanuunkii qabaan xanuunyada inta badan ee corona fayrasyada kale waxa jira waxa la yiraahdaa interferon oo qofka dareensiinayo inuu xanuunka qabo asaga uu ka maqan yahay marka dad baa jira aan is ogeynba oo dadkii de xanuun yarna dareemaynin walaa temperature maxay haytay xumad qandho xoqodo xanuun waxbaba dareemaynin caadi isaga soconaya qaar baa iska yara sanku xidhan yahay oo moodaya inay de sankun yar xidhmeen oo duray baan ugu yara dhacay saasoo kale u haysta sidaasuu kaga duwan yahay laakiin dadkana qaar
na si yaroo fudud buu ugu dhacaa si yaroo fududna wuu ka baxaa waxa kale jira dadka qaar buu aad ugu xumaadaayo aynu aragnay intaa qof dhimanaysa maalin kasta waa dadku aad ugu xumaado wuxuu u daran yahay sanbabada ayuu ka dhigayaa sidii wax meel gubatay oo kale marka sida magaranaysaa qofku markuu gacantiisa gubato sida dhakhtarku noogu micneeyay waxa weeyaan qofku markuu gacantiisa gubato oo kale markuu iskaarku ku dhaco magaranaysaa qofka sidaasoo kale sanbabadii ka dhigayaa labadii sanbaba marka qofkii saasuu sanbabadii u xumaanayaan waxa kale uu wataa jidhka oo dhiig oo xinjir yeelanaya oo waxa la ogaaday coronaviruska marmarka qaarkood xitaa markii la isiri qofka irbadda kanilarka ka yidhaahaan irbadda doonayaan inay siiyaan ama dawooyinka ama fluidka ku mida inay ku mudi kari waayeen oo xinjir uun soo horbaxday oo jidhkii uu xinjir samaynaya marka sidaas uga khatarsan yahay ka kale oo dadka dhimashadu saasay u badan tahay marka laga yaabay fayrasyo badan wayna soo mareen sida H1N1 iyo SARS-ka waynagii ogeyn marka dadka laga yaabo markii hore in immunity lahaayeen laakiinse kan wax prior immunity ay leeyihiinba ma jirto marka sidaas uu khatar yahay waliba khaasataanka dadka waaweyn uu ugu sii daran yahay marka walaal yes gone soco walaal marka inaga soomaalida aad baad mahadsan tahay si fiican baan intaa u sharaxday su-aasha kalin doonaya inaan ku weydiiyo waxaad moodaa in dad badan oo Soomaaliya xoog ku dhacay dad badan inna ay u dhinteen xanuunkan marka miyaynu uga nugulnahay dadka kale maxaa sababay in Soomaali badan uu cudurkan xoog ku dhaco والله horta markii hore xanuunku bilaabmay anigu waxaan garanayaa iyadoo la yiraahdo ethnic minority-gu aad ugu badan yahay black and ethnic minority-ga oo marka aad ma garanaysaa dhakhtarka ka shaqaysid ay dhakhtarku waxa la yiraahdo assessment ay ka qaadayaan 1 point waxaad ku helaysay maadaama aad qof madowdahay baad 1 point ku helaysay marka horeba ma garanaysaa kaas 1 point buu ku siinayaa so taa haddayn ka sokowno Soomaalideena inagu Soomaalida hoos u eegno dadka waxaan anigu ay ila tahay wuxuu inoogu badan yahay haddeen Soomaali ahaan nahay horta waxaan u malaynayaa inaynan u qaadan xanuunkan wax sidii wax khatar oo kale ah aynu iska sahlansanay oo wax sahal oo kale isaga dhiganay waayo waxa taa cadaynaysa wali iyadoo oo ay hadda ay sidaa tahay oo intaas qof dhimanayo 2 lockdown 3 lockdown aan ku jirno waxaad maqlaysaa maalin kasta dad baa isu tagay oo gruubiye isugu tagay sida maxay haytay amaba de xilliga aroos dhiganaya qaar baa guryaha isugu tagaya qaar baa maxay haytay makhaayado yaro qarsoon wali samaystay oo de magaranaysaa meelo yar isugu tagaya sida flaado wali dadka sidii bay isu dhex marayaan marka waaniga yidhi dadka qaar baan la garanayna inay qabaan marka dadka lama yaabsani waxaas leedahay anigu xanuun ma qabo kalaas leedahay maxaan dee xanuun ma qabo waraana xanuun ma qabo laakiin garanaysid dee inuu kuu qarsoon yahay sidaasaa la isugu tegayaa marka waxa fiican waxaan u malaynayaa taasaa inoo sababaysa inugu badan yahay oo isu tagaa badan waayo marka runta la sheego ma nihin dee si fiican maxay haytay korontonimada bandowga maynu samaynin oo weli wayn isku dhex jirnaa taa ka sokow walaal horta xanuunkan mideen marka hore nimanka waxaan u malaynayaa anigu intaan arkay ragga ayuu aad labadaba ugu wuxuu yahay laakiin markaan arkay ragga ayaa dhimashadu ku badan tahay baan anigu siri sida aniga opinionkayga weeyaan marka anti 50% chance baabad leedahay inaad ka soo baxdid marka ragga Soomaalida markooda horeba kuma fiicna caafimaadkooda wala macal dumarka la qaatay waxaan maleeyahay raggu kuma fiicna marka hore marka siday dhakhtarka ugu tagaan ama dee u sheegaan problem haysta way yartahay laga yaabee in xanuunyo badan isaga qarsoon yihiin midda kale waxa la dadka aad hilibku u saaran yahay ayuu ku sii badan yahay waliba hilibka caloosha garanaysaa stomach fatka yiraahaan marka waxay noo qarsoon baan u malaynayaa dhiikar oo ay dad badan qabaan ma ogaan inay leeyihiin NHS-ku waxay samaysaa waxay yiraahdaan screening qofku markuu 40 jir gaadho laga soo baaro blood pressure waan filayaa dad badan inaynan GP-ga u tagin oran iga baadh maba aha waan qabaa waaba iga baadho waayo blood pressure-ku symptoms ma laha
qofka wuu iskaga dhacaa wuu iska soconayaa qofkii isagoo bilaa symptoms iyadoo laga screen gareeyo maahane si kale isu garanayo iyadoo dee ama ku xanuunsado ama stroke ku dhaca maahane marka taa waxaan maleynayaa waxa jira wax badan oo inoo qarsoon oo aynan xanuunyo badan oo inoo qarsoon aynan ogeyn waxa kale ka mid ah macaanka wadna xanuunka horta dee haddaynu soomaalida aan gaar ahaan uga hadlo waan isleeyahay waxaasaa ugu wacan waxyaabaha badan ee iyagoo ugu dhacayaan tiradooda markaad eegtid inta qof ay ku dhacaysana laga yaaba dee tiradu inay tahay say isugu tegayaan inta qof ay u dhimanaysaana inay tahay waxyaabaha xanuunyada ay ama qabeen amaba dee ugu sababayso sida macaanka ama high blood pressure-ka ama cholesterol-ka sida ay taasna sababaysaan u malaynayaa iyaguna say markaa ugu dhimanayaan huda aad baad u mahadsantahay si fiican oo wanaagsan baad u sharaxday runtaa oo aad bay noogu badan yahay ragguu ku badan yahay waxa ku dhaca ragguu badan sida aad sheegtayna inaynu guryihii isugu tegayno makhaayad isugu tegayno dumarkii oo kale oo iyaguna runtii ama tacsi markay noqoto aad moodo inay guriga ku wada ururayaan ama aroosba sida aad sheegtay waana waqti adag oo loo baahan yahay in la taxadaro iminka cudurrada aad sheegtay oo kale dhiikarka oo kale blood pressure-ka macaanka xaydhan mataqaanaa caloosha inaga korta dadka saasoo kale haddiiba uu khatar dadka sidaa ku yihin runtii ragguna habeen dhowda waxaana la joogay xaashi xuseen oo ka shaqeeya gpyada magaalada mid ka mid ah waxa uu yidhi badanaaba dadku ragga soomaalida waxaa laga yaaba yidhi isagoo 15 sano magaalada joogay inuu bilaa xitaa gp yahay maalinta shaqada looga baahdo ayuu isa soo qoraa adiguna imika waxaad ka hadlaysaa monitoring in si joogta ah la isku baaro leh bal waxaan iga eeg marka haddiiba xanuunadii ay ka mid ahaayeen oo kale dhiikarka aan qofkiiba loogin inuu qabo oo arrintaasina khatar iguna tahay sidee baynu haddaynu soomaali nahay dabeecaddaa u bedeli karnaa oo runtii marka la eego xalay waxaa nala joogay sheekh faysal cabdiraxmaan oo ka mid ah imaamiyada magaalada runtii wuxuu si fiican u sharaxay uu ka hadlay wakiilashada ilaahay in ilaahay la wakiisho xikmad ka dambaysa iyo dadaalka haddaad tidhaahdo waan iska fadhiisanayaa oo lacag baan doonayaa ma shaqo tegayo ilaahay baan wakiishanaya dee lacagtii helimaysa haddii aad dariiqa iska gasho oo tidhaahdo ilaahay baan wakiishanaya dee baabur baa ku jira laakiin inaad ilaahayna wakiilato dadaalkiina la timaado innaga markaad eegto imika IC unitska meelahan dadka xoogga ku jira waxaanad carabka ku dhufatoo tidhi 50% mar haddii halkaa lagu geeyo fursadda aad kaga soo noqotaa waa 50%. marka qofka Soomaaliga ahi uu marka horeba isagoo aan isugeyn inuu macaan qabo ama iska baarin baxaydii cholesterol haddii markaa la geeyo sidee baynu imika ka hortag u samayn karnaa aynu bulshadeena wacyigelin karnaa maxaa la gudboon yaa ragga iyo dumarkaba horta marka ugu horeysa waa inaan xanuunkan aynu qaadano wax serious aynan sahlasan oo aynan isdayacin ma garanaysaa inaynan isdayacin oo aynan isu dhigin oo qof kastaaba uu ka fakaro marka uu doonayo inuu meel tago maxaan meeshan u tegayaa maxaan uga baahanahay ma garanaysaa hadduu ma garanaysaa uu dee ka suurto noqon weydo inuu meesha ka joogi kari waayo uu tago wixii muhiimka uu baxo isu tagan waa inaynu joojino dadku imika waxay haystaan telefoon wada haysanaa kamarada bay wada leeyihiin waa la iswada arki karaa qof kastaaba meesha joogaad kala hadlaysaa kala xiriiraysaa kala hadlaysaa ugu sheekaynaysaa maxaad qof gurigii ugu tegaysaa waa inaynu fadhino oo aynu dhegaysano ma garanaysaa intaasoo wacdiya baa layna siiyaa maalin kasta oo telefishinka ama maxay haytay radioga ama se meesha soomaalida laga hadlayo aynu ka dhegaysanaa qofna maxay haytay kama saano qof kastaa wuu maqlayaa qof kastaa wuu arkayaa marka inaynu iska indhatirna maaha waa inaynu si fiican ma garanaysaa wacdiyada u dhegaysano oo aynu iska yarayno socodka oo aynu guryaheena joogno marka waxaan u malaynayaa socodkaa badan haddaynu joogno numberku inuu yaraan lahaa ma garanaysaa waayo imika cadaanka inagoo qudha maaha walaal ma garanaysaa soomaalidoo qudha maaha wale waxa weeyaan
dadkan aan la joogno maadaama inagu waxaan nahay small percentage dadkii wayn ka yarnahay waan ka tira yarnahay saasaynu dareemaynaa dad badan inooga dhacay oo kale magan laakiin iyagoo adiga arkaysa intaasoo qof waa ka dhimanaya maalin kasta ayagu imika Christmaskii bergii dhaweeyta Christmaskii ay celebrationka ay sameeyeen ay qaar badan isu tagaan ay ka qaadeen marka iyaga la hadashid waxay ku leeyihiin I wish inaanan Christmas ba samaysan I wish I didn't bother waayo de ama abahood baa ku dhintay ama hooyadood baa ku dhimatay ama qof ay jeclaayeen bay magaranaysaa sabab ugu noqotay isku tagaan sidaa daraadeed waa inaguna aynan heeraheenii iyo maxay ahayd qof kasta qof uu jecel yahay leeyahay abahoodii hooyadoodii iyo waalidkoodii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii raggoodaba aynan sababta soo kale maxay tahay ay isugu dayaan inay u badbaadin karaan caruurtooda maxay leeyahay heerkooda ama waalidkoodaba ama iyaga naftoodaba ay marka uga fakaraan runtii bal haddaan waxaa sameeyo maxaa igu soo dhici kara waa run qofna qadarka ilaahay albaabka kama xidhan karo garan oo ma oran karo albaabkan ka xidhanayaa qadarka ilaahay waayo ilaahayna waa la tawakala markaad albaabka ka baxay sidaad suuq qabanaysa waanaad tiraahid bismillahi tawakkaltu cala allahi walaa xawla walaa quwwata illa billah soo maaha laakiinse inaad tiraahid bismillahi tawakkaltu cala allahi walaa xawla walaa quwwati qof coronavirus qaba oon u malaynayana waan isaga tegayaa maaha because ilaahay xanuunyada iska badbaadi I'm sure wuu ku yidhi iska badbaadi saa isu badbaadin karto marka taasna inuu samayno maaha waa inaan runtii ka fiirsano meelaha aynu soconayno iyo sida aynu foolxumada aynu isugu wada tegtegayna xitaa waxaa jira dad hadday doonaan duray moodayo oo kooranaya duray baan qabaa ayagoo dee duray imika dadka duraygii ilan garanayno kuu yahaye dee duray baan qabaa ma noqonaysa waa inaad tiraahid laga yaaba inaan coronavirus qaba hay imanina self isolation baan samaynayaa oo xitaa marka aad adigu test haddaabad isu malaysid inaad qabtid oo tiraahid istiraahidba laga yaaba inaan qabo maxay haytay xanuunkan ilan ceeb maaha waxaasoo dad ku dhacaya inagu wax kasta waxaan ceeb uga soo saarna garanaaye inaynu idhaaho weeyaan bal intaan testka sugayo waan iska joogayaa markaasaan kala caddayntaas baan sugaya at least oo xitaa haddaad meel shaqo aad tegi lahayd oo dad la shaqaynaysid aad sugtid ilaa testkaasi resultskiisi intuu kuu soo noqonayo ku kala caddayn lahaa markaad kala ogaatid un aad shaqadii ku noqotid waayo marka haddaa adigoo kala caddayn oo maskaxdaada ay ku jirta laga yaabeeba inaan qabo waayo dee waxaad teskan buu soo qaataysid waxay ahayd possibility inaad qabtid soo maaha dee inaad dadkii u tegtid oo halaag gelisid dee taasi way fool xuntaa waa laga wacan yahay marka waxaasi waxa weeyaan dulmi magaran ogaan baad u samaynaysaa ayoo kale weeyaan marka qof kasta waa pandemic shaqooyinku way og yihiin reasonska aad magaranaysaa haddaad tiraahid testka waan iska soo qaadee waxaan sugayaa inta resultkii soo dhacayo iska joog intaad resultkii 24 hours baa u qaadanaya ama wax ka yar intaa maxay haytay intaa u samir taas waa halkeeda maxaad abul kale tiri waaban sheekadii runtii waad ka hadashay qofkan sidee baynu imika dadkii ugu dhiirigelinaa fiican baad u sheegtay in dulqaad loo baahan yahay in la taskarayo dadkeennan kale walaal ee aad sidaad sheegtay xanuunada ay ka mid yihiin dhiigkarka oo kale blood pressureka ee iska socda iyo weliba waxaan raacin lahaa sugeen iyo vitamin D-gu isagu muxuu qayb ka qaataa vitamin D-ga iyo ironta iyo labadaasina aad bay inoogu yar yihiin rag iyo dumarba horta marka ugu horeysa inagu ma garanayo inaynu as a group Soomaaligeena aynan garanayno waxaynu xaq u leenahay iyo waxaynan xaq u lahayn waxaynu joognaa meel oo alxamdulillah caafimaadka aad u fiican tahay dhakhtariin fiican joogto marka haddii aad waa inaad rightskaaga waa inaad ogaatid wixii waxa aad iska baari kartid oo kale so matalan NHS-ku waxay sameeyeen waxay yidhahaan screening ayay sameeyaan dadka veteran ama 65 haddaad tahay ama under 65 haddaad tahay screening bay sameeyeen so imika haddii aad doonaysid in dhiikar lagaa soo baadho kale yacni dhakhtarkaaga markaad 40 jir tahay waad u tegi kartaa waxaad oranaysaa waxaan doonaya waxay dhahaan MOT waxaad iga baadhaa dhiikar inaan qabo oo macaan iga baadh oo kan iga baadh marka waxa diseasyada ay dadka ka baadhaan inta badan waa cardiovascular disease oo waa diabetiskaasa ka mid ah iyo high blood pressureka iyo maxay haytay wadna xanuunka iyo maxay subaga marka inta wuu kaa baaraya dhakhtarkaagu xaq baad u leedahay hadduu kaa helo kiniin buu ku siin marka kiniinkii waa inaad qaadatid maaha dhiikar baan layga soo helay
dee ma xanuunsanaya wuu iska kaysiyey daweyn buu iska kaysiyo deetana halkaa shandada dusha kabarka halkiisa ugu sarreysa ku ridoo dibba wiilow de adigunbaa markaa magaranaysaa naftaadii dulmiyey markaa kiniinkii lagu soo diray waana qaadatid caafimaadkaaga waa inaad ka warhaysid midda kale vitamin D-ga waxay inooga yartay inagoo qura maaha horta qof kasta oo waxaan malaynayaa UK-ga jooga vitamin D-gu waa ka yarta waxa keenaya waa adigan garanaya imika bal imika inta wiigan maalin qorax maynu aragnay mayse ma qorax ma aragno vitamin D markaa ma helino maadaama ay qaboobo tahay waa inaad badisid vitamin D-ga sidaad u qaadanaysid hadda waaba lagu iibiyaa dukaamyada adequate ma garanaysaa vitamin D waad ka iibsan kartid marka waad soo iibsan kartaa waad qaadanaysaa adigu qaado caruurtaada si vitamin D-guna cells waxay samaysaa protection bay cells ku samaysaa so sidaasay coronaviruskan iyo virusyada sidooda kale iyo xanuunyada kaleba immunity-ga ayay u fiican tahay inaynu qaadano vitamin D-ga oo iron-tana dee qofkii uu iron ka yaryahay iron-tu iskama yaraatee hadday iron-tu kaa yaraato adigoo nina dee waa inaad isa soo baadhid oo tiraahid maxay iron-tu iga yartahay ma diet-kaagay maxay hatay ma waxaadan cunin wax kuu soo kordhinaya D-ga waayo dee iskama yaraato ma qof dhiig ka shubmaayo ayuunbay ka yaraan kartaa iyo dee sababo kalena way keeni karaan laakiin mar kastaba waxa fiican inaad GP-gaaga la xidhiidhid oo wixii ama jidhkaaga ka maqan aad dee la socotid kiniinku ku yidhaaho qaadatid inagu waxaan samaynaa waxaan nahay dad yara magaranaysaa stubborn baynu nahay marka stubbornkaana ma garanay waxa inoo keenay ma waxa weeyaan dee wallahi ma fahmi karo anigu the reason aynan stubborn ma doonayo inaan waa dad hoodo warta dad keli adag baynu nahay dad madax adag baynu nahay yacni waxyaalaha qaar sida aad sheegtay vitamin D-gii iron-tii birtii in dukaamadii baynu kasoo iibsan karnaa farmasiyaashii baa lagu iibiyaa waana muhiim marka marka qaarkood dee wacyigelintan aan caawo kale aad noo samaynayso waxaan u baahan nahay bal sidee baynu dadka ugu dhiirigelin karnaa wadigaa imika sheegay faa'iidooyinka iron-tu inaan iska dhicin aysa ugu dhacdo inaad cuntadaadii eegto aad cunaysay fitamiinadan aad qaadanayso kale imika cadceedla-aan baynu ku jirnaa marka waxa weye qofka 10 sannadood halkan jooga aan cadceed badan arag dee waynu ognahay waa runtaa imika wiigan oo kale maxaa wiigan oo kale bishan oo dhan cadceed baynaan arag marka dadkii cadceedaaba kala fududoo dee imika qofka wadankiisii jooga Afrika jooga cadceediisa halkaa ka helaya vitamin D iyo halkan ka helaya isku mid ma midda kale dee dumarkeenu hadday nahay waynu xijaaban nahay marka markeena horeba cadceed basaani uma arkayno maadaama aynu xijaaban nahay boo xitaa garden lahayn qofka laga yaabaa isagoo haddana garden leh inuu yar fadhiisan lahaa cadceed isu dhigi lahaa samahoo kale saasoo kalena suuradgal inoo ma noqonayso inteena badan falaaday dad ku jiraan ma ogtahay oo aqaladaa ku yaryar marka taasoo kalena way keenaysaa cuntada aynu cunaynano haddii aynu nahay dee waa inaynu health conscious noqono mar kastaba inagu aynu ka fekerno dee healthkeena sonkorta iska yarayno subaga iska yarayno caruurteena ka yarayno waa junkan siinayna crisps iyo maxay ahayd waxyaabaha kale chocolate iyo biscuit waa runoo anigu hooyaan ahay marka waan garan karaa inay markay dee aad qofka yaraa kugu soo goodo aad iska siinaysid oo iskaga aaminsinaysid laakiin waa inayn markasta ka fekerno ma doonino caruurteena iyaguna inay obese noqdaanoo ay naaxaanoo xanuunyo u yimaadaanoo magaranaysaa waxaan u malaynayaa Africa dee garow iyo waxbaa lagu cuni jiray caano iyo waxbaa la cabi jiray marka waxaan hadda haysanoo kale lama arki jirin qofna chocolate iyo biscuit iyo fridge ay uga buuxaan junk muu haysan magaranaysaa saasaana inoo fiicnayd marka waxay la tahay qof kastaaba wuu garanayaa waan filayaa wixii u fiican laakiin waxa weeyaan waa effort magaranaysaa healthku waa effort maaha wax yacni adigoo garanaya ayay haddana kula tahay wax adagoo kale wax culus waa culays ku saaran oo kale oo maniga hadhowan qaadanaya balki vitaminka waarnoo yartay hadhowan samaysanaya wax kasta dib baad u yara dhigaysaa marka waxaynu u baahan nahay inaynu dabeecadeennii bedelno behavioral change samayno oo caafimaadkiina ku dadaalno waxaa tiri health waa efforts inaynu caafimaadkii ku dadaalno ninbaa waxaa wuxuu odhan jiray mar hadduu qofku 30 jir dhaafo caafimaadkiisa isaa gacanta ku haysta marka dadaal dheeraada marka maadaama maantana xanuunkani huday noo yimid
iminka cusbitaaladoo kale marka aad ka shaqaynayso weliba Bristol dhexdeeda bal Soomaalidu sidee ku tahay marka laga yimaado qolooyinka ICU unit ku jira waxa tidhi markuu sanbabada ku dhaco oo sidii qof gubtay baa gacantaadoo dab haleelay oo kala gubtay marka waxa weeye sanbabka u bahalkani haleelo wuu gubayaa wuu dhalaalinayaa sidii dhuxushoo kala mudubaynaya marka haddaba dadka intay waxaa jira dad badan oo cisbitaalka la geeyo laga soo daayo soo noqda gurigii jooga aan xitaa qaarkood joogin marka sidee baa aynu cisbitaalada ku nahay sidee bay dadkan caafimaadkuse su'aalo noocay ilaa la yaabaya waxa leeyahay war dadkan miyay dhegalaa yihiin iyagoo tiradooda yar tahay ayay haddana ugu badan yihiin IC unitkii iyo cisbitaalkii iyo war kasta marka dabeecadaheena isku tagga sidaad sheegtay runtii ragga aad baa noo canaanay waana la canaantaa anigana iska bilaabayo taasi ma aha arrin aanu ka gabanayno laakiin haddana waxaad moodaa dumarkii lambarkoodu inuu soo kordhayo innaga oo maxaad odhan lahayd hudaay innaga oo ka hortegayna oo la dagaalamayna raggiina wacyigelinayna oo ka codsanayna inay dabeecaddoodii bedelaan behavioral change sameeyaan haddana dumarkii oo tiradooda soo kordhayso iyaga maxaynu ka odhan karnaa horta anigu cisbitaalada markaan dadka ka shaqeeya sometimes asxaabadayda la shaqeyn jiray markaan la hadlo maalin dhexdaas waxay igu yidhaaheen Soomaalidu badly affected ayay coronaviruska sanadka ayay ku yihiin in badan baa dhakhtarka ku jiray ayuun baan anigu uga qaatay marka particularly intensive care-ka BRI oo kale marka taas horta way noo cadaynaysaa in inagu ku badan nahay saa inoogu badan yahay dumarka waxaan u malaynayaa walaal inta badan waxa weeyaan ayagu ma islaa khalad sameeyo way garanayaan iyagoo garanaya haddana ma islaa khalad sameeyo waayo anigii ku yidhi sometimes buu xanuunkan uuna lahayn aadan garanayn inaad qabtiyo in kale markii qof geeriyoodo waxay sooranayaan dee qofkii usoo tacsiyey iyagoo isle wax wacan samee oo qofkii dhintay usoo tacsiyey heerkii soo eeg markaas ayagoo maaskoodii xidhan oo marka hore guriga kaga baxaya laga yaabay markay tagaan heerka u tagaan inayba iska saaraan marka de waxaad iska qarinaysaa qof dibadda ku magaranaysaa marayay baad isleedahay kaa iska qari ilan markasta inaad xidhnaatid maaskaagii weeyaani marka de haddii saasoo kale ay geerida oo kale tahay eeg waa inaad waxaan lagu siinayay dad warningkan lagu siinayay wacdigan lagu sheegayo 2 meter away qofka ka fogaatid maaskaaga markasta xidhnaatid gacmahaaga mar walba isku eegtid inaad mar walba dhaqdid xitaa markaad dukaanka tagtid aad ka timaatid gacma lockdownkii hore eeg imika lockdownkan iyo lockdownkii hore waa completely different lockdownkii hore Soomaalida isugu dhacay way yarayd waayo dadkii oo dhani waxay u qaateen serious markaa oo waxay sameeyeen xitaa cuntada marka dukaanka laga soo iibiyo dad badan baa dhiqi jiray laakiin hadda waxa la yidhi war naga dhaafo waxaan marka qofka waxa lagu sii wado marka dambe caadi bay iskala noqdaan way iskala qabsadeen oo kale weeyaan haddana hadda dhimashadu iyo sida dadku ku dhacayaa badanta waana de winterkana waa adiga garanaya hawlihiisa markiisa horeba marka xanuunkani waa airborne oo qofku qufacay naqas xitaa asta laga yaabo inaad kasoo qaadid markaad tagtid dukaanka markaad tagtid meeshaad maraysidba meeshii lagu talagalay waad kasoo qaadaysaa marka adigoo taa og waa inaad haddana aad iyo aad isugu eegtid inaad follow garaysid guidelineska ay governmentku bixinayaan aad maaskaaga xidhitid gacmahaaga mar walba maydhid dadka yare socodka yaraysid aad dadkana ku tiraahid walaala idinkoo iga raali ah dee qofkii dhintay ilaahay ha u naxariisto u ducee halkaa ugu ducee heerkii halkaas telefoonka kala hadal laakiin gurigaaga iskaga eekow wax kuu dhaamaa ma jirto inaad guriga iska joogtid aad maxay haytay waxaad imika haddaad adigoo xanuunkii intaad istiraahid waad qabtaa iska soo baadhidoo lagu yidhaaho waabaad qabtaa aad tiraahid alla shalayto qof hebel baan la joogay adigaaba naxaya qof hebel hadduu xanuunsado dhakhtarka galo waxaad moodaysaa inaad adigu sabab u noqotay marka for that reason waxa kuu fiican inaad iska joogtid oo aadan maxay haytay socodka yaraysid oo haddaad tiraahid xitaa dad baa jira oranaya dee qofkaa wuu ku dhaco waa lagu soo sheegay dee mar labaad kuma dhacaye dee waan isaga tegaya oo kale ma garanaysaa xanuunku mutation buu sameeyaa weli lama garanayo variant waa ka new variant ku soo bilaabmay absolutely
walaal waa runtaa farcan kale new variation baa soo bilaabday runtii innagana Soomaali ahaan markaan moodo markaan mar dhaweyd lahaa waxaynu u baahanaa dabeecadaheena in wax ka bedelo behavioral change waxaa runtii inagu badan laba wax weliba ta ugu muhiimsan taa dhiga adeegaa sheegta waa sax waxaynu nahay aad baynu wax u dhegaysanaa marka waxaynu dhahnaa kelmad oraha baynu isticmaalaa odhanaysa waxa la yidhi xogtii saxda ahayd ma doonanayno waxa la yidhi marka waxaad moodaa iminka qaarkood waxaa rumaysanay waxa la yidhi qof muslaan hoo iguma dhacayo waxa la yidhi cudurkani Chinese baa keenay waxa la yidhi jiir baa laga soo qaaday yacni kun sheeko kala duwan marka waxa la yidhidaa inagoo iska dayn iminka waxa soo baxay tallaalkii vaccinationkii marka waxa la yidhideenina way taagan tahay marka waxaan doonayaa inaad laba su'aalood oo isxiga ka jawaabto horta waxa la yidhadan iyo caafimaadku saamaynta isku leeyihiin oo the impact uu inagu sameeyay waxa la yidhidaas ay leedahay iyo qaladkan ama laga fahansan yahay ama conspiracy theorieskan aynu faafinayna mataqaanaa tallaalkii vaccinationka ee la leeyahay chip baa lagu gelinayaa maxaa ka jira horta waxa la yidhi waxaan u malaynayaa social media-ka aad ugu badan yahay waxa la yidhi social media weeyaanoo marka inta wax yar la sheego ayaa 5 minutes later million qof buu taabtay wixii yaraada sheegtay markaasaa loonaya waxa la yidhi bal ninkani wuxuu yidhi dhegayso bal qofka kale wuxuu yidhi dhegayso marka waxaan u malaynayaa inaguna waxa la yidhi waxa wacan kama doonane waxa xun baynu ka raacnaa marka waxa la yidhi dee waa inaan iska dayno oo inagu waxa factska aynu doonano qofkan wuxuu yidhi ha dooranine adigu orodoo research garee waxa factska wixii dee saxsan adigu doono iska dhaaf marka hore ka fiirso qofkani wuxuu leeyahay waxa la yidhi ka fiirso ma noqon kartaa deh sidan talo ma noqon kartaa iminka vaccine-kaad sheegaysaa chip baa lagu miday talo dee ilan xanuunkani waa pandemic meel adduunka meel uuna ku dhicin ma jirto waa pandemic meel kasta uu ku dhacay sidaa daraaddeed maxaa inta vaccine la sameeyo dadka loogu wada mudayaa inay dee ku wada dhintaan adduunka waxa qof joogo dhan baa la doonaya in markaa la wada dilo ama conspiracy oo chip lagu rido lagu dabagalo dee chipkaba maxaaba lagaagla doonaya markaaga horeba telephone baad haysataa location buu leeyahay national insurance baad haysataa home address baad haysataa home office baa kula xidhin haddaad barinta halkaa ka baxdid 1 second waa lagu soo qabanaya marka maxaa lagu chip lagugu dabagelaya there's no point there's no reason chipka lagugu mudayay waxaas waa conspiracy waa wax dadku iska sheegayaan waa magaranaysaa waxa fiican inaad research samaysid oo aad adigu horta runtii way fiican tahay qof kastaaba inuu dee uu la imaado why uu question garayn karaa wax yacni sababteebaa waxaan loo samaynaya wuu oran karaa markaa sababtaana adigu waa inaad dabageshid oo si saxa u dabageshid inuu qof kale oo hadeerto kasoo maqlay qof kale inuu wixii kuu sheega maahay waa inaad adigu dabageshid oo su'aalo aad dee waxa maskaxdaada ku jirta aad research garaysid oo dadka researchka weydiisid maaha inaad haddii aan halkaa su'aal kaa weydiiyo huday sorry inaan su'aal kaa weydiiyo huday waxaad tidhi in aad xogtii dhabta ahayd doonato oo research ka socodsiin haddaba waxaad ka soo qaadaa dadkeenna waaweyn ama daadhexaadka aan si fiican luqadii ingiliishka u qorin ama akhrin ama qaarkoodba dee aanay luqadba afka ku adagyahay marka whatsappka video loogu soo diro videogaasi 10 qof oo kala duwan u soo diraan ee la yiraahdo waxa la yiri innagiina cilmi dhagoodka nagu badan yihiin khatarta ay leedahay sidee baynu dadkeena waliba dadka waaweyn uga dhaadhicin karnaa in ay xogta dhabta ah doontaan maadaama aanay luqadii research garan karin ama xag cilmi ha noqoto ama xag mataqaanaa luqadba ama xag cilmi ha noqoto aanay iyagu xogtii dhabtahayd factski saas sigtay doonan karin arrintaasina khatar bay nagu tahay waxaa la yidhi markaa see baynu dadkeennii dhinacii caafimaadka weliba adigoo ka eegaya dhinacii caafimaadka khatar intee leeg bay ku tahay sidee baynan uga badbaadin karnaa horta walahi dadka waaweyn waa run oo dadka yaryar wax akhriyaya wax akhrisan karaya wax eegi karaya iyagu dee researchkooda samayn karaya iyagu waa tooda waayo qofkaas at least wuxuu haystaa choice oo isagaa choose gareeyo waxa
akhristay oo markaa choicekiisii la yimi dadka waaweyn aan ingiriisiga garanaynin amase waxba akhriyayna dee qof iyagu waxaa la yidhi iyagaa raacaya marka dee dadkooda yaryar adigu dadka waaweyn ina waxay u fiican tahay wallahi horta in sidan oo kale aynu uga hadlayno oo kale aynu badino haddaan Soomaali nahayn in wargelista iyo waxa saxda ah dadka u sii sheegno dad badan oo Soomaali oo caafimaadka ka shaqeeya way jiraan dhaqtariin badan weyn leenahay nurses badan weyn leenahay public health way ka weyn leenahay marka dadka in la xiriiro oo magaalo kastaaba ay yeelato magaranaysaa meel ay dadka waaweyn su'aalo ay ka weydiin karaan qofka ay qofkii u saxaya waxaan ay soo maqleen oo kale oo si sax oo daacad ugu sheegaya ayaa fiican maxay haytay horta the vaccine-ka markiisa horeba xanuunyo badan inagu marka insaan u hadalnaba waligeen baa dadka la soo mudayay waligeed baa laga soo mudayay magaranaysaa xanuunyo ama jadeeca ha noqoto ama maxay haytay furuq ha noqoto amaba wax kastaba ha noqoto ilaa hadda ilaa yo maxaan maleynayaa 1796 meelaha ayaa dadka la soo mudayay magaran marka adigu ilaa beliga ilaa from the beginning ilaa hadda way jirteen dad badan oo ka soo horjeeda oo wax magaranaysa xitaa small boxka markii ayuu ku bilaabmay vaccine waxa la oran jiray ma doonayno cowpox wax sac buu qofku isu bedelaya wax saas oo kala baa la oran jiray ma ogtahay waa long time ago waad saxsan tahay waa runtaa huda malaha ciyaalkii waa soo yara galay marka talaalka dad badan ayna ku kalsoonayn waa okay haddaadan ku kalsoonayn laakiinse waxa fiican de inaad yacni ka fiirsatid oo si fiican u fahamtid reasonska why lagu mudayo imika coronaviruskan anigu sida ila tahay qof kastaba opinion buu leeyahay maxay tahay vaccineku markeedu horeba waxa weeyaan very deep political questions weeyaan oo dadku aad bay magaranaysa uga xanaaqaan marka su'aashaas oo kale la weydiiyo dadka marka as opinion aniga opinionkayga hadday tahay yacni waxa weeyaan waynaga arkayna meel kasta kala xidhay hadda xanuunkii ma socon karno waynagana hadda la guryaha jooga maxay haytay qof meelna ma qaban karno iskuuladii carruurtii waa tan laga joojiyey haddii ay dee vaccine ay noo soo saareen waxa ay leeyahay xanuunkii ka hortagaya de alxamdulilah weeyaan oo waa inaynu at least duunka magaaladaaba kala soconayso waxba sidan unbay ay dhaamaysaa haddaad dadka shaqaalaha hospitalka ka shaqeeyana front line workerska markii horeba anigu intaasoo qof baa lagu miday 1.3 million bay maraysay shalayto duraat markaa ma garanayo maanta intay marayso marka intaasoo qof haddii dee ku miday weli way joogaan weli may dhiman they still alive jibno kuma jiro waxna kamay qaylinin marka waa in markii hore waynagin lahayn yani is okay inay question garaysid laakiin waa inaad tiraahid waana anigu kama soo horjeedo waxa saa dadka ugu fiicna waxa weeyaan adigu lack of magaranaysa waxa weeyaan education maybe waxa weeyaan dad badan oo cabsi ka baqayo waxyaabaha newsyada xumxume dadka laga dhaadhiciyey sida waxbuu ku yeelayaa ama 3 sano dabadeed baad ku dhimanaysaa haddaadan haddaba haddaad doontid kuma dhalaysid maxay haytay jib baa ka dhex qaylinaya waxaasoo dhan dadka cabsi bay gelinaysaa waa waxaynahay human beings marka haddii laynoo sheego wax cabsina gelinaya waynu ka cararaynaa laakiin inaad ka fiirsatid weeyaan oo ka fikirtid intaasoo qofaa lagu miday hadda bal waxaan joogaa haddaad imika dadka waaweyn oo kale waa dad waaweyn waaway xanuunyo badan baabay qabaan sida markii horeba vaccinta durayga waa kuwii isku soo wada mudi jiray vaccintana maaha kuwa kale kama duwana dadku waxay oranayaan waxa loo sameeyey alla si dhaqsaa baa loo sameeyey waxa dhaqsaha loogu sameeyey markooda horeba waxay u baahan yihiin vaccintu lacag badan in la siiyo siday new vaccine u soo saari karaan tan adduunyadii oo dhan baa isugu tegay scientiskii oo dhan baa isugu tegay waxay lacag haysteen iyo waxay haysteen adduunyo way isku dareen sidaasaa ay fast ugu soo saareen waana aad bay anigu aan runtii ugu farxay inay vaccine soo saareen haddii aan anigu maxay haytay maanta laygu oran lahaa hooyaday waan kula taliyey waxaan ku yidhi hooy markay soo baxdo vaccinta dhakhtarkan kula hadlaya qaado iyadu waa qof weyn laakiin way tiri dee horta bal yara kaadi aan ka yara fakare marka
slowly education qofka markaad uga sheekaysid de waxa especially dadka asmarka qaba maxay dadka xanuunyada qaba macaanka qaba dhiikarka qaba waynaga arkayna dadkii yaryara dad baa oranaya xanuunkan waa xanuunka dadka waaweyn maalintii sabtidii dhaweyta markaan shaqada joogay ITU-ga intensive care-ka waxa ku jiray one day before 5 qof baa ku jiray maalintii dambe aan tagay 12 baa ku jiray in one day waxa soo galay another 7 people average age code wuxuu ahaa 32 ka ugu weyn wuxuu ahaa 60 jir ka ugu yarna wuxuu ahaa 30 jir inta ugu badanna 30 jir bay ahaayeen in fact 7 people waxay ahaayeen from 30 to 38 inta kalena waxay ahaayeen from 40 to 60 wax ka weynba may jirin so taasaad ku tusaysaa inayna xanuunkani ahayn xanuun dad weyn iyo xanuun dad yartoona qof kasta uu ku dhacayo caruurta laga yaabay they don't have walaal yarsi aad baad umahadsantahay hoodo huda runtii sida ay hudi inoo sheegtay xanuunkani inaanu cidna dhaafaynin sida ay sheegtay dhakhtarka ay siinay in boqolka celcelis ahaan dadka ku jiray ay da'doodu ahayd 22 jir ka ugu weyn 60 jir ahaa marka inaanu cidna dhaafayn waxyaalaha ay sheegtay runtii mataqaanaa loo doonto wixii xog ah wixii aqoon ah huda waxaan intii unbad yara adkeynan lahaa in loo doonto xogta mihnalayaasha caafimaadka waxa la yidhaa runtii si ay u sharaxday waxaa jira hadallo badan adduunyada dhan baa nala qabta waxaan eegayey xalay baan akhriyayey qolooyin maraykan oo warbixin ka qoray ilaa 25 waddan ayaa yacni waxaa lagu faafiyey waxyaalo badan oo aad u kala duwan marka in la isaaliyo la taxadaro huda halkii ka sii wada markaa walaal dadkan waaweyn markaa sidaas dadkooda yaryar way ugu sheeg iyaguba hadday doonaan aan doonaynin haddana dadkan waaweyn maadaaba aynan iyagu afkii garanaynin inay iyagu waxay vaccine-kii ka qabaan u sheegaan maahaane ay ku yidhaahaan iyaga sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan weeyaan ma garanaysaa don't influence them maxay influence ideyadaada adigu ha gelinin iyo waxaad adigu ka qabtid laakiinse qofka choice see oo u sheeg waad joogtaa xanuun baad qabtaa sidan weeyaan intaas qof baa lagu miday maxay kula tahay discussion open discussion waa okay laakiinse waxa xun dee kasoo horjeed wixii oo waxaad tiraa may beena kasii sheeg weli waxaad tiraa kan baa kugu dhacayo kan baa kugu dhacayo kan baa kugu dhacayo sii gudbi taasaa aniga maxay ahayd waxa la samaynayo taasaa ugu foolxum qofkan beenta amaba misconceptionka laysu sii wada sheegayo dadka waayeelka da' jooga waxaan walaahi anigu kula talin lahaa qaata laga yaabay waxay la tahay mar bay noqon doontaa say u socoto imka khasab maahe inayba khasab noqoto oo meeshaad istiraahid mar lagu oran doono ma haysataa talaalkii lagu soo talaalay yani certificate lagu siin doono haddaad istiraahid dukaan qabo ama maxay haytay dhoof saasoo kale ayba lagu weydiin doono ay khasabba noqon doonto ayaan u malaynayaa they must saasaa dhici doontaan sileeyahay so intayna saaba noqon sidaad hadda aad adigu isu sii badbaadin kartid qaadaan ku oran lahaa ayaan oran lahaa anigu dadka kula talin lahaa vaccintu wax dhibaato ah oo laga arkay ma jirto kolay anigu ma arag wax dhibaato oo laga arkay vaccintu anyway waa sida medication sida magaranaysaa qofka ugu horeysa maalin ugu horeeyo antibiotic hadduu qof qaato dee laga yaabay hadduu doono inuu allergy ku qaadi karo kale iyaduba waa medicine vaccintu waa medicine marka kolayba 100% waxba maaha guarantee inaad qofna ma ku siinayo with anything in life nolosha markeedu hore waxna 100% guarantee maaha vaccintana intaasoo qof ayaa lagu soo eegay intaasoo qof baa ka qayb galay intaa qof baa researchka lagu daray marka dee intaasoo dowlad baana soo seexday oo tiri waa maxay haytay waa safe sidii loo qaadan karaa so taa daraaddeed ayaa caddaynaysa inaynan wax xun oo dadka ayna waxna yeelaynin absolutely waa runtaa warka waxaa ku jiray in imika sida ay dowladdu u qorshaysay vaccinationkii talaalkii waxa laga yaaba dadka badankooduba inaanay ciyaar ku helin maanta waayo
mudnaanshihii baa la kala leeyahay priority baa la kala leeyahay oo 8 jirka qofka xanuunsanaya dad badan baa ka horey marka in la is ilaaliyo oo la taxadaro runtii si fiican baad wacyigelin fiican baad caawad nasisay warbixin fiican oo nasisay waxyaalaha inoogu adag sidaa sheegtay dawo kasta waxaa ku qoran khatar bay leedahay markaad dhakhtarka la hadlasho oo dawo ku qorayo wuxuu ku leeyahay dawadaasi side effect bay leedahay saameyn bay kugu yeelan kartaa markaad operation yar qalin yar oon waxba ahayn aad gelayso yani khatarta ugu weyn baa lagu sheegaa marka huda maadaama waxaad ka hadlashay dhaqankii dadkeena waxyaalaha dadkeena ku faafin karo inay dadkii guryahan isugu tegayaan maqaayad isugu tegayo aan la dhageysanin aynu dad dhaga adagnahay runtii la isla gartay oo innagaa isnaqaana runtii dhinacan kale oo ah waxa la yidhi oo been badan dadkii la faafinayo oo jib baa laga adiga arrintaa yidhi jibkiina ma jiro ugu dambeyntii waxaan eegayay commentska horta aad baad u mahadsantihiin dadka commentka oo samaynaya waxaan filayaa su'aalo kuma qorna inaad si fiican wax walba ugu sharaxday oy su'aalo aanan kasoo noqon marka ugu dambeyntii bal ragga iyo dumarka soomaalida adigoo ka horreysiinaya rag waayo isku si uma wada dhaqanno ragguna sibay u dhaqmaan dumarkana sibay u dhaqmaan maxaa ugu dambaysa caawa aad talada ugu dambaysa aad siin lahayd arrimahaas ugu dambaysa aad siin lahayd adigoo horta marka hore ragga la hadlaya ya haddana dumarka la hadlaya mid la hadlaya maxaad odhan lahayd horta waxaan ku oran lahaa ragga sida aan walaaladay oo kale ula hadli lahaa oo kale ula hadli lahaa waxaan leeyahay walaalayaal hadda ragga Soomaalida horta markiina hore idinkoo raga oo xanuunkani marka horeba idinku sii khatar yahay haddaan idinka in la hadlayo waxaan idinku oran lahaa horta haysdayicina oo heerkiina ha dayicina maxay haytay naftiina ha dayicina mar kastaba ogaada social distancing laydin soo werinayo maalin kasta warka laydinka sheegayo inaad mar kasta aad samaysaan oo aad isku daydaan si aad iyo aad waliba isku daydaan inay samaysaan social distancing oo aydan meelo qarsoon iyo maxay haytay marfish iyo mukhaayad iyo waxa waa laga wacan yahay aad in yarba imika waxaan filayaa inaynu gabagabiyo xanuunkan insha Allah inuu Ilaahay naga kaxeeyo oo marka vaccine-kan la sameeyo uu inaga dhamaado inaad u samirtaan in yar oo intaa yar gurihiina joogtaan oo heeriina family-gini la joogtaan oo qof kastaaba heerkoodii intaa yar guryaha jooga isbartaan waayo marka hore waa la kala maqan yahay qofna shaqo ku maqan yahay carruurta iskuulay ku maqan yihiin maadaama la wada joogo heeriinay si fiican isu bartaan oo guryahoodii raggii iska joogaan qofkii dee shaqo u tagayo isagu waa tiisa qof kasta ka shaqada tagayana inuu sugaado oo maxay maskiisa qaato sida social distancing at least sameeyo markuu xitaa shaqadii joogo marnaba gacmihiisana mar walba markuu suuqa marayo markuu guriga yimaado faraxasho ama sankiisa taaban iyo indhihiisa iyo wajigiisa toona ma garanaysaa waayo dib waynagan garanayna inuu yahay airborne waxani marka meel aad taabatay laga yaabo kaasoo raaci karo qof hindhisay kaasoo raaci karo so mar walba inaad adigoo taa maskaxdaadii ku haysta aad sidaa aad isku daydid inaad adiguna aad iyo aad isaga sii adkaysid xanuunkan oo si fiican isu badbaadisid adiga iyo reerkaagaba iyo dadka kale ahalkaaga iyo dadka kula shaqeeyaba oo imika NHS waa overwhelmed waxa dad dhakhtarka ku jooga aad iyo aad bay badan yihiin marka siday leeyihiin protect the NHS xumaan maaha waayo de anagu markaan NHS-ka joogno waanu aragnaa walaahi maaha xanuunkani maaha wax sahlan haddii aad garan lahaydun haddaad dhakhtarka ka shaqaysid ama aad arkaysid dadka siduu ka dhigay ayuunbaad aad u fahmi lahayd xitaa dadka uu ku dhacay faamiliyaashu ku dhacay iyo dadkoodii ka dhintay haddaad la hadashid baad qofkii aan garanayn qof uu ku dhacay aan garanaynin haddaad qof uu ku dhacay heerkooda ku dhacay aad la hadashid ayaad fahmaysaa bal imagine qof uu maanta ku dhacay xanuunkii dhimashadu waaba halkeedee oo inta dhakhtar la geliyey qofna u iman karaynin qofna soo eegi karaynin qofna ka warhayn karaynin uu halkaa qofkii keligii joogayo xitaa hadduu sii hadlayo shahada qofna quraan
ku akhriyayn ashhada loo sii qaban karaynin taas waa mucjiso qof dhan oo aad intuu kaa baxay maanta dhakhtarkii la dhigay aadan dibna uga warhelin ma garan marka taasaaba wax laga naxa ah soo adigoo taa garanaya dee inaad haddana iska aad iyo aad intaad is adkayn kari lahayd is adkaysid ayaa aad iyo aad u fiican dumarka ayadana sidoo kale waa run dumarku way isu tagaan guryaha isugu tagaan way soo eegaan waxbay magaranaysaa xagbadaha guryaha la isugu geeyaa qofbaa ii kaalay heblaayayo waxaas baa la yidhaahaa adiguna maxay haytay dumarkana sida ragga oo kale iyaguba waa sidaa ragga intayo dumara iyaguba dhintay maxay haytay la geeyey dhakhtarka keligood oo dee aan sida ragga oo kale ilan xanuunkani qof kasta wuu ku dhici karaaye keligood meel maalin intee qof baa aniga maalin layla soo hadla laygu yidhi qofkaas please maxaan dhakhtarkii ku jiraaye bal noola hadalo bal dhakhtarka la hadal ma garanaysaa marka inagoo garanayna oo qof kastaaba aan filayo inuu ogyahay qof saasoo kale uu ugu dhacay iyo qof xanuunkaasi uu gaarsiiyey khatar iyo qof ku dhintayba inaynu ka fiirsano waxaan samaynayno ayaa aad iyo aad u fiican ayaa aniga ila tahay huda aad baad u mahadsan tahay waa taladii ugu wanaagsanayd ee aad yacni kusoo gabagabaysay ragga fadlan talooyinka hala qaato yaan la isdayicin naftiina ha dayicina reerihiina qoysaskiina ha dayicina kala durka social distancekii mar walba ilaaliya digtoonaada oo feejignaada marka aad guriga dibadda ka soo gasho intaanad meel kala taaban faraxalo yani oo guriga xitaa dhigta alcoholshi maxaa la yidhaha bashan disinfectionka waa muhiim dhalinyaradii weliba inamada ha u badtaane 13 ilaa 18 jirka ee dibadda intay u baxaan soo noqonaya idinkuna waxa laga yaabaa hooyadii inay isla markiiba cunto u dhigto mataqaanaa malqaacad iyo midi siiso ama foog iyo midi oo ay hadhowna iyadii taabato uu ku fidi karaa marka isilaaliya markaad guriga gelaysaan faraxasha bahasha isticmaala sida ay hudi inoo sheegtay sanka indhaha wejiga ha taabanina afka gacantaada ha u dhaweynina waayo nafteena ku xiran runtii sidaa kale sheegtay doorkii ugu horreeyey xoog inuu saamayn waayo waynu wada baqanay qof walba uu siilaanay laakiin iminka waxaad moodaa inaynu isdhiganay ta kale xaggii dumarkiyow hablahayagiyow haweenkii wanaagsanhayow fadlan guryaha bal in yar baa inoo hadhay iminka waxaynu kusoo jirnay bishii 8aad baa inoo socoto waxay noo soo bilowday bishii 3aad sanadkii hore bishii 8aad baynu ku jirnaa tallaalkii waa la helay sidaa ay hudu sheegtana tallaalka waa run lacag badan baa la geliyey adduunyaduna baa isugu tagtay si loo helo degdeg wax loogu helo wax loogu qabto fadlan bal intaa guryaha ha isugu tegina tacsiyaha marka waxaa naga bixin ma qofkii tacsiya doontaa telefoonada ha laga hadlo oo haddii aad doonaysa inaad qofka wejigiisa aragto dee aaladahan laga hadlo iminka ama whatsapp ha noqoto ama zoom ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee kala hadla oo telefoonadeenni baa wada kaamarada iyo video leh fadlan taa hala sameeyo ta ugu muhiimsan ee aanay dumarku dareensanin ay hudina carabka ugu dhufatay hagbadahan ay dumarku kala qaadinay wareejinayaan may odhan joojiya laakiin waa inaad heshaan hab aad lacagtiina ku qaadataan qofka ka waran lacagtu qof ku keenay uu soo taabtay adigu sii taabatay laga yaabo inaad qof kale u sii geyso 3-4 gacmood ay marto runtii marka laga hadlo marka taasina intaasoo qof ay marto marka haddaad markaad lacagta tirinaysaan warbal gloves xidha ya oo markaad dhiibaysaan gloves xidha oo is ilaaliya marka fadlan inaga ilaaliya waxa la yidhi sida ay hudu sheegtay waxaan leenahay mixnadayaal badan oo caafimaad ka shaqeeya ha noqdaan dhakhaatiir ha noqdaan kalkaaliyaal caafimaad ha noqdaan qolooyinka kale la shaqeeya health link workerska la yidhahdo neerska kulligood way joogaan fadlan la xidhiidha wixii aad u baahataan ee macluumaada ee xogta dhabta aad doonta inaga daaya waa la yidhi haddii kale dee bulshadeennii baa khatara dadkeennii baanu khatar gelinaynaa waajibaad baa ina wada saaran diintuna waxyaalaha ay waajibaadka inaga saartay waxaa ka mid ah ilaalinta nafta caafimaadka ilaalinta caafimaadka qofka iyo bulshada ilaalinteedina waxay naga saaran waajib gaara
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa Huda Muuse Caaji aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan jeclahay inaanay noqon markii koowaad ay noqoto aad soo noqoto weliba in adiga iyo qolooyinka kale kula midka ah in iyagana aanu bal inta cudurkani socdo ilaahay ha inaga samata bixiyeen aanu wiigiiba mar idinkoo 2 ama 3 dadka usoo fadhiistaan oo dadka su'aal idin weydiiyaan oo saasoo kale aad faahfaahin loo bixiyo oo weliba waxyaalo gaara iyo waxay nagu soo batay aynu ka hadalno Huda mar kale iyo mar saddexaad aad iyo aad baad mahadsan tahay aad baan kaaga mahadcelinayaa jazaaka allahu khayr walaalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم